إلا هذا واحد كنت من ضدك أنا ورته وعلى لقى حرتي ماشي اللي رقايم يا بعض أنت ودحيس markii dagaalkii baxda dhacay kadib aan la xirtay dadka markii la xirto muddo la haystay niman mudug jooga oo xardeere iyo wadanka jooga is abaabulay dadkii inay raadshaan ay damceen markay tageen waxa la yiri odayaal galguduudadan imaan la idin siin maayo dadkan galguduud aan laga xiray odayaasha galguduud ay yimaad saasay nagu soo waceen waxayna niman dadkaas rajuu leeyahay rajaduna adinkeedu ku xiran tahay haddaad adinku timaadaan dadkaas rajulay haddii kale 70 kaas nin waa ka samrid intaasay nagu yiraahdeen annagoo 70 qofna soo badbaadinay oo difaaca baxda hadda qaar ku jiro difaaca baxdo dhexdiisa la idinka maqashiinayo oo difaaca uu ku jiro inaan horay u shaqeynay oo ciidanka gurmadka galnay oo dagaalka ku jirna waxa cadeynaya Umar laba ka taal afar baa ka taal caliyare aniga saddex baa iga taal oo baabuurtii beeluhu lahaayeen oo shacabku lahaayeen oo aan geynay waxa ku dhintay wiilasheedii waxa ku dhaamacmay wiilasheedii marka ma ahayn anagu niman dawladda wax u dhibahayay waxaan nahay niman dawladda hagaajinayay dadkooda heshiiska horta dad baqtinaysa baqtiga waa la cunaa mar baa la dhooyada anaga heshiisku wuxuu ahaa 70 qofood baa nooga xiray hadii 70 aan ka samri lahayna anaga la xirayn inaan anaguna xiranno 70 kana laga samro oo meel aan laga soo qaban karin ay gaarto inaan been ku maslaxnaan ku gadanay nidaamkan heshiiskii annaga waxaan u maleynayaa beesha aan ka dhashay baabuur iyo waxay leedahay hub kulligood ayaga ka soo horjeeday kuwaan waa aboodaan u nahay waa sii jeedin aan ku soo gaarnay aabbaha tegin ayagoo kuwa ileeyihiin baan ka soo dhuuntay oon soo galay maxkamadda soo aaday heshiiskii marka saasuu yahay annagu dad dawlad dhabar jabiyana ma ahin mana ahin haddii alla yiraahdo niman musuq maasuqana ma ahin heshiiskan soo galay gacan ku rimiskaas buu ahaa haddana wixii dawladdu ka garataan ka yeeli doono haddii alla idmo oo ama beenayna ama af Soomaaliya waxay ku mudan tahay oo ay mudan tahan marinayna wixii horo annagu aan soo marnayna wax ka jira ma lahayn heshiiska ay la galeen waxa ka mid ahaa mudan gudoomiye in hubkii iyo saanadii iyo dhammaan agabkii ay haystaan beeshu lagu wareejiyo kooxda al-shabaab oo la hoos geeyo si ay mar kastaba u laayaan ay u dilaan halna reerku ay u dilaan heshiiskaas ay soo qaateen reerku ma matalaan mudan gudoomiye reerku ma matalaan arinta waxa cadeeyay nabadoonkii guud oo sheegay in reerku uu yahay hal oo san laba ahayn saddexna ahayn iyagana ka mas'uul xagga dhaqanka way soo laabteen mudan gudoomiye shir jaraa'id ay cadaada ku qabteen shirkaas jaraa'id wuxuu ahaa cover waxay rabeen in heshiiskii ay soo saxiixeen ay dhaqan geliyaan ay kala furfuraan reerkii oo mid ay u kala dhigaan si uu cadowgu markasta u laayo arinta iyada ah reerkii waa ku baraarugeen way iska qabteen way soo xireen hay'adihii amniga ayay ku soo wareejiyeen annagana maxkamaddii horkeen mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan dhagahooda ku dhibciyo xarar dheere waa meel xura waa la xureeyay dadkii xureeyay waxa ka mid ah dadkii ka soo bilaabay xureynta qaayib iyo baxda ka soo bilaaba ka mid ah dadkii xureeyay iyagana meeshaas ay heshiis ku soo saxiixeen waxay rabeen reerkii oo dhan inay hoos geeyaan kooxdaas khawaarijta ah odayaashan ma aha caruur ma aha waa dad waaweyn oo wax garad 70 jir ah muddo badanna soo dhaqmaayay maanta iyada oo gabagaba shabaab marahayo inay inta u tagaan goobtooda ugu tagaan iyagoo isu dhuunta kaliya hoos ka balansaday ee heshiis la soo galaan oo mar laba haddana shir jaraa'id ay qabtaan dadka ay ugu faanaan macnaheedu waxay tahay shabaab waa sii gabaabsay waa soo noolaanaya sidaa darteed maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanto oo ay qorayaan aayaadka qur-aanka iyo xadiidka iyo qodobada aan ku soo eedaynay ay ku xukunto nimankan odayaasha ah gacantii cadowga waa ka yimideen cadaadii dhuusamareeb ay ku soo laabteen warqadahana la arkay Soomaa markii nabadoon guud iyo arrimo ma loo baahnaba ayaga hadda xataa waa ka gaarnaa wali TV-ga qaranka hortaaganahay maxkamadda hortaaganahay hadayba beenihayaan wax uleeysa ma leeyna wixii aad ku dhahday xardheer xaa ka jira waxba kama jiraan hadoo dhahaba sideeda qofku adoo wixii uu sameeyay haddana uu yiraahdo wixii waxa kama jira ila goobtii uu joogay hadda waa yimid Soomaa
warshir jira idinoo qabta imaada kaaliya suulka saara saxiixa warqadahan ilaahow hay-ad kasta wasaaradda amniga maxkamad xeer ilaalin boolis qolo walba ha u timaad odayaasha ka saxiixdo shabaab shaqo kuma lihin waxaas beere ahaayeen ee warqada ka saxiixda warqadaha laga saxiixo maaho waa isku dhamaata warqadaha laga saxiixo wax kaloo hadda ka dheeraada oo meeshaan yaalo ma jiraan heshiisa ee shabaab ee odayaashan ay la galeen ee jira ma jiro haddii odayaashan ee shabaab la heshiinayaan dowladda Soomaaliya maxaa la yiraahdaa cadaado iyo xardheer 300 ilaa 350 kiiloomitir oo si jiraan qiyaastii dowladda Soomaaliya waxay maamushaa oo kaliya xilligaas ay maamuleysay 70 kiiloomitir odayaasha intaas dhulkaas weyn iyagoo haysta oo joogi karo ayay yimideen cadaado markay yimaadeen annaga shabaab aan nahay ma dhihinay waxay yireen annaga shabaab dadaan ka doonnay dadkina waa ka keennay haddii ay shabaab yihiin shirkaas ma qaban lahayn ee xarada shabaab ee ka taliyo ee iska joogi lahayn isiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysanayaal cumar maxamed jimcaale cumar faniinto cali axmed xayle caraale cali yare iyo sugaal warsamo cali intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso